intii uu xilka guddoomiyaha degmada Yeel loo magacaabay mudane Mahad Xasan Nuur waxaa degmada ka muuqda isbeddel muuqda oo dhinacyada horumarka iyo adeegyada bulshada ah. Muddadii uu maamulayay xafiiska degmada waxaa laga hirgeliyay mashaariic muhiim ah oo si toos ah u taabanaysa nolosha shacabka. Waxaa dib u dayactir lagu sameeyay dugsiga hoose dhexe ee Yeete si ardayda u helaan deegaan waxbarasho oo wanaagsan. Sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyay degmada dugsi cusub taasoo sare u qaadaysa fursadaha waxbarashada ee carruurta. Dhanka biyaha ceelasha degmada qaarkood waxaa lagu sameeyay dhismooyin cusub oo casri ah halka kuwa kale dib loogu dayactiray si bulshada ay u helaan biyo nadiif ah oo joogto ah. Sidoo kale waxaa gabagabo ku dhow dhan weyn oo biyo xiran ah warbiyoodka taas oo door weyn ka qaadan doonto kaydinta biyaha roobka ah. Xarumaha caafimaadka ee degmada ayaa sidoo kale la gaarsiiyey biyogelin iyo qalab caafimaad si loo xoojiyo adeegyada caafimaadka ee bulshada. Dhanka isku socodka iyo ganacsiga waxaa dib u furmay sanado kadib wadada ganacsiga isku xirta Muqdisho Baydhabo xadka Itoobiya taasoo fududeysay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo safarada dalka ee ku tagayaan bulshada Yeed. Sidoo kale maamulka degmada waxa uu guulo ka gaaray xasilinta amniga iyada oo la xoojiyay wada shaqaynta bulshada iyo maamulka isla markaana sare loo qaaday wacyigelinta bulshada. Tan iyo imaatinkii guddoomiyaha degmada waxaa soo booqday madax kala duwan oo ka socday hay'adaha caalamiga iyo kuwa NGO-yada kuwaas oo bulshada ka taageeraya adeegyada gargaarka iyo horumarinta. Sidoo kale degmada waxaa safaro shaqo ku tagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda Koonfur Galbeed Cabdifataax Cali Mursal iyo madax ka socotay hay'adda Nis Foundation iyo agaasimaha wasaaradda biyaha Koonfur Galbeed kuwaasoo ka qayb qaadanaya howlaha horumarineed ee degmada. Dhanka kale maamulka degmada Yeed oo kaashanaya hay'adda Nis Foundation iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kulamo la yeeshay bulshada si loo falanqeeyo qorshaha horumarineed ee sanadkan soo socda ay bulshada u baahan yihiin. Mashaariicda muhiimka ah ee la qorsheeyay waxaa ka mid ah in degmada laga hirgeliyo leyrka solar systemka ee ku shaqeeya cadceedda si nalal loogu sameeyo wadooyinka magaalada habeenkii, dhismaha howl shir oo cusub, dhismaha saldhigga booliska, xafiisyada maamulka degmada, biyogelin lagu samayn doona xaafadaha degmada, taanka gaari ambalaas oo loogu talagalay gurmadka caafimaadka degdega ah. Guddoomiye Mahad Xasan Nuur ayaa sheegay in maamulka degmada ay ka go'an tahay sii wadista dadaalada horumarineed isagoo xusay in sanadkan soo socda la dardargelin doono mashaariicda muhiimka ah. Warbixintu waxay muujinaysaa in degmada ay ku socoto waddo horumar ah iyo dib u dhis iyada oo maamulka degmada iyo bulshada ay si wadajir ah uga shaqaynayaan mustaqbalka wanaagsan ee Yeed. Shacabka degmada Yeed ayaa waxay u bixiyeen maamulka degmada maamulka rajo soo celinta ee degmada Yeed. Badruddin Maxamed Caalim.